dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemayaa gobolka Sool aaga magaalada Oog iyo deegaano kale oo ka tirsan ilaa gobolka Sanaag. Saacad walbana waxaa laga cabsi qabaa isku dhacyo ciidamo ah. Waxaan ku faahfaahin doonaa xogta wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ay Somaliland ka bilowday aaga magaalada Oog. Hubka la sheegay in halkaasi laga raray iyo sidaas la mid ah Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan oo qaadaya tallaabo u eg wax dagaal si uu ceergaabo u difaaco. macluumaadkaas oo faahfaahsan ayaan ku siinayaa haday tahay markii kuugu horeysay nagu soo bir oo soo dhawow daawade. wararka laga helayo gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag ayaa waxay tilmaamayaan in dhacdooyin kala duwan oo la xiriira dhanka ciidamada si weyn looga dareemayo aaga gobolka Sanaag ilaa gobolka Sool. dhacdooyinadaasi waxaa la sheegay in ay ku saabsan yihiin xiisado xoog leh oo ka taagan gobolka Sool oo u dhaxeeya ciidanka waqooyi bari iyo kuwa Somaliland. ciidanka Somaliland waxay ku sugan yihiin magaalada la yiraahdo Oog oo ah saldhigga ugu weyn oo hubka iyo rasaasta iyo gaadiidka dagaal u yaalo, halka ciidanka waqooyi bari ay joogaan magaalada Guumeys. Guumeysi Oog waxaa la aaminsan yahay inay isku jiraan 37 kiiloomitir, waana masaafo aad u yar. askariga xabadda ka soo rida gudaha magaalada Oog waxa ay dhawaqiisa si weyn looga maqli karaa ayaa la leeyahay magaalada Guumeys oo ciidanka waqooyi bari mar walba heegan ayay ku jiraan iyagoo ka cabsi qaba duulaan weyn oo uga yimaada dhinacyada aan soo carabaabay. saacad walba waxaa la arki karaa dagaal halkaasi ka dhaca haddii aan xal degdeg ah loo helin tabashooyinka halkaasi ka jira ayay khubaradu aaminsan yihiin. Somaliland markan waxay ku jirtaa diyaar garowgii ugu sarreeyay, halka maamulka waqooyi bari la aaminsan yahay inuu isna ku jiro diyaar garow xoog leh oo ku aadan isdifaacid haddii lacala duulaan lagu soo qaado. xogta la helayo waxa ay tilmaamaysaa in dhowrkii saac ee la soo dhaafay ay jireen in maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale maamulka Somaliland ay isdhaafsadeen tiro wax u eg rasaas oo la aaminsan yahay inay xiisada uga sii darayso, iyadoo odayaal isxilqaameena ay dadaal xoog leh ku bixinayaan sidii loo joojin lahaa daandaansiga Somaliland loona hakin lahaa dagaal halkaasi ka dhaca. laakiin haddaan dib ku xasuusiyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay, khubaradu waxay aaminsan yihiin in dad badan oo ku sugan gudaha magaalada Ceergaabo ilaa gobolka Sool ay xilligan wajahayaan dhacdooyin kala duwan. xogta la helaya waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saac ee la soo dhaafay sidaas oo kale ay jireen warar iyo macluumaad banaanka yimid oo la xiriira in dadka deegaanka ee Ceergaabo ku sugan laftirkoodu xilligan ay wajahayaan dhacdooyin kala duwan oo la xiriira in Ceergaabo iyo sidoo kale laascaanaba dagaal ay ka bilaaban karaan. laakiin hadda xiisada ugu weyn waxay ka jirtaa waa gudaha magaalada Ceergaabo, halkaas oo dad badan ay aaminsan yihiin in dagaal ay lama horaan tahay haddii aan si degdeg ah loo helin xal waaro oo la xiriira in xiisada la qaboojiyo isla markaana miiska wada hadalka lagu soo laabto. laakiin haddaad eegtid dhacdooyinadii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay, xaajadu waxay ku tusaysaa in Siciid Cabdullaahi Deni, Suldaan Siciid iyo sidoo kale madaxweyne Cirro ay markan ku tashadeen in dagaal lagu difaaco magaalada Ceergaabo. gobolka Sool dhaqdhaqaaqa halkaasi ka socda ayay dad badan aaminsan yihiin inay hub u badan tahay, hubkaas oo la sheegay in laga soo kala qaaday meelo fara badan oo ka mid ah aaga magaalada Oog. hubkaasna dad badan waxay aaminsan yihiin inuu yahay mid ay Ceergaabo ku dhig bixi doonto Somaliland oo ay doonayso waliba inay magaaladaasi ku difaacdo haddii duulaan lagu soo qaado, halka khubarada kale iyana ay aaminsan yihiin in Ceergaabo xilligan aysan xabad u baahnayn laakiin xaajo nabadeed oo u baahan tahay maadaama darafyadu iskhilaafsan ay halkaasi ku wada sugan yihiin, xaajadoodana ay dabcan si hoose u dhaqi karaan. arrimaha sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay la dareemay culaysyo waaweyn oo dhanka amniga ah oo ka imaanaya maamulka Somaliland oo la xiriira in galka dagaalka Ceergaabo loo gacan geliyay Mahad Cambaasho oo gacan ku dhiigle baabi'iyay dadkiisa, kaasi oo hadda la aaminsan yahay in isaga laftirkiisa tallaabo laga qaadi doono haddii uusan xal degdeg ah u helin in loo adeegsado beeshiisa oo la yiraahdo beeshaada duulaan ku qaad. waana wax iska caadiya in la arko in saraakiil hore ama saraakiil ka ridowday beelahooda in la arko iyaga oo markaasi loo adeegsanayo xaajooyin murugsan oo la xiriirta arrimaha ka taagan gobolka Sanaag ilaa gobolka Sool
oo dad badan aaminsan yihiin inaysan xal ku jirin xabad balse xalku uu ku jiro in la wada hadlo gudahana wararkeena waa intaa haddii tahay markii kugu horreysay nagu soo biir subscribe channelkan waxaad la socon doontaa dhammaan wararkii warbixinada halkan aan ku daamacno soo dhawow daawade maalin wanaagsan